waa hagaag dhageystayaal waxaad la socotaan barnaamijkanka dayarta qof walba ruuxa hadda garab jooga ee uu nolosha la qaybsanayo ama uu damacsan yahay inuu la qaybsado waa qasab in uu ku qanacsan yahay ma jiro qof kale si go'aan ula dooq ah balse waxaa jira dhaqamo iyo astaamo wanaagsan oo bani aadamku isku wada raacsan yahay sidaas oo kale waxaa jira astaamo guud oo gabar walba rabto in ay ku xulato wiilka ay nolosha la wadaagayso bal maantana waxaynu barnaamijka ku eegaynaa tilmaamaha gabadhu ay ku xulan karto nolol wadaageeda waxaana barnaamijka igala qayb galaysa ustaad Caaisha Mursal Maxamed oo aan jecelahay marka hore inaan soo dhaweeyo أهلا وسهلا أنا أمها سنتهاي جزاك الله خير محمد قدر iyo idaacada himilaba aad u mahadsantiin waa tahay ustaad Caaisha marka ugu horeysa waxaad tilmaamaha inaga siisaa qaabka gabadha marka ay ku xulanayso lamanaha ay nolosha la wadaagayso بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم بعد اللهم وفقنا لما تحب وترضى أنا أمها سنتهاي هذا أنا أنت تلمامها قبل والبا حلان هاد ما أنت صوت المام هل كان أدو بديهين لكن وح أمهم سن وقبل إني كحلطة قفك إيربطون لما نودا كذا وحكم إذا دينته قفك إنه دين ليه هاي سيدو كله أخلاق ذا waayo diinta waxa waaye qofka muslimka laazim waaye qof muslima inuu guursado waliba gabadha muslimada laazim waaye islaamnimadu waxay muujinaysaa waxyaalo badan oo ka nahyeenayo qofka kaafirka sidoo kale akhlaaqda la budda waaye qofka inuu akhlaaq leeyahay لأنه أخلاقه وشيء آد مهمة وصفة النبي عليه الصلاة والسلام إلهي كمدحي أما إلهي كتل مامي وأمانة محاسفة كمدة وإنك لعلى خلق عظيم يعني وحا إلهي كسفيه إنه لا يهي أخلاق آد ونكسن سيدو كالي قبضة مسلمة وحي كدورن هيد زوجك وحا كمدة إنه لا يهي قدرة إنه أوده قوركان هذا أهان هيد مادي أو هانتي يعني وحا ومركز مكلفة ومركز لغو نولان كرا يكون نولان كرا وحا كمدة النبي عليه الصلاة والسلام مركو لها يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج لأنه الزواج قفك مركو أوده إنه بحيه باقة أما يعني قود كمركز لو حينا لازم وإنه قرصه هدوسن أودين مركا مقفك سوسن أودين إنه يعني قفك أو بحيه حالتها قدرة يسوسن أودين مركز وحاول مالينا فعليه بالصوم نقول على سلسلة عند بديك لأن الصوم كو حياله بدن أيوقفكو وحديديا وسيد إنديس أو كلو حديديا أو كلو حديديا أو كله إنه قفك يعني زنا وكدع أو كله نفس ديس الشهوات كيسوه وصوليها وحيالها كميدا لازم قبل ونك كدورة وحكميدا مركز صوشين أخلاق يدين إنه أوله إنه يهاي شخصية يعني قف إنه شخصية لا يهاي هذا أهان لهاد شخصية كاملة هذا أهان لهاد إنه قف كان شخصية ضدك دور نوع وكالة الماما قفك إنه ضدك كم مقضي قارة الماما قفك لكن شخصية وحالة قفك إنه وفاء ليه هاي بلنتيس أو فينكرو إنه ليه هاي يعني قدرة يعني إنه أوده قبضنا إنه هنتو وحياله بدون واي شخصية بس إنه ليه لازم واي وايو شخصية دو أخلاقه وحا قصة الماما يا وحير تلمام سينا نبي موسى عليه السلام markay uu imaaday labada gabdhood oo waadiga oo ka waraabshanay nabi Muuse alayhi salaam uu caabiyay yani markuu caawiyay oo biyihii uu arooray oo ay aabahood ku laabteen maxay ku dhaxeen ya abat istajirhu inna khayra man istajarta alqawiy amin yani awooda iyo Muuse sameenin yani uu ka hormaray inay gabdhayihiin ay xishoonayaan oo gees ay taagayaan arkay yani قوية رجولني ما كتير شيء ما من الرجولة وعاوية أبهن مركي أصلا بتاعنا وحي كهلين قبل أي كهالشيء
gabdhaha mid kamid ah in uu yahay qof aamin ah oo haddana qawi ah oo shakhsiyad leh walidaalika sifooyinka ay gabdhaha ay ku doortaan ay kamid tahay raggu way badan yihiin marka waata marka gabadhu haddii aysan wax sifo ah oo wanaagsan aysan u fiirin isla markaana ay guursato taas maxaa ka dhalan kara waxaa ka dhalan kara horta guurka inuu qofka iska fiiriyo lamaanihiisa aada u wanaagsan haddii ahaato gabar iyo haddii ahaato ninba qofku inuu nolosha la wadaago waxyaalo badan oo karamkuu ka fiirin karaa wuxuu ka fiirin karaa diinta akhlaaqda waxyaalahaas oo dhan inuu eego wuxuu ku muhiimsan yahay aasaaska guriga inuu wanaagsanaado laakiin hadduu ka fiiriyo waxyaalo inuu yahay inuu qofku qurux badan yahay ama hanti bis haysto waxaa lumaaya maxaa la dhahaa waxaa lumaaya interesting markaas qofka uu lahaa iyo guurka wuxuu ka lahaa waxay noqonayaan wax aada u micno daraa waa tahay dhegeyste waad nagala qaybgeli kartaan barnaamijka idinkoo araadiina inoo soo gudbinaya dhegeystahan ayaan ku bilaabayaa ee qadka ku jira hallo dhegeyste maxamed adiga iyo yaqaan maama martida barnaamijka Caaisha waxaan leeyahay galab wanaagsan sidoo kale soo dhawow waa maanta maxamed sida quruxda badan aad barnaamijka igu soo dhaweysay waxaan leeyahay markale galab wanaagsan mowduuc haddaan u dhaadhac mowduuc muhiim in laga hadlana habboon dabcan gabdhaha sida ay ku xulan karaan wiilasha tilmaamaha ay ku xulan karaan marka maxaad fikra oo raacin lahayd walaashay tilmaamo fara badan ee hore usoo sheegtay in qofka akhlaaqdiisa oo kale inaad ku xulatid oo kale oo wanaagsan inaad qofkaan hadda meeshuu u socday meesha kale inaad kala fiirisid inaad ku degdegin qofkaan wax badan ee kaaga imaan karto marka caqabadaas dhan intaad dhexda iska fiirisid dhinac walba ayaa habboon haddaad aad dumar tahay waa tahay adigoo mahadsan dabcan gabdhaha markay xulanayaan oo inay qof xushaan oo kale ama wiil inay guursadaan oo yacni uu guursado ay doonayaan ama inay guur galaan ay doonayaan maxay tahay is leedahay marka waxyaabaha inay ku xulato ay tahay fikir ahaantaada waa mahadsan tahay wax badan ayaa jirto in qofkan akhlaaqdiisa diintiisa iyo familigiisa oo kale ama reerkiisa oo kale in ay qofka oo ka fiirisid siyaabo fara badan marka akhlaaqdiisana waa shayga ugu muhiimsan qofkan hadduu akhlaaq leeyahay maanta waad nolol waad wadaagi kartaa waa tahay dabcan akhlaaqada qofka inuu qarsado waa dhici kartaa mararka qaar oo wax wanaagsan la soo baxo laakiin markii guriga la tago oo si kale la soo baxo taas adis ay kula muuqataa way jirtaa in badan waa inaad dhici kartaa taas qofkan wuxuu kugula damacsan yahay inuu shabeelkiisa kugu soo rito oo markaasna la soo baxa miciyadiisa u qarsoonaa way jirtaa laakiin waxaa taas kaga badbaadi kartaa oo aad marnaba in aad sheekadaas ku quraxda kaga badbaadi kartaa inaad horta ku degdegin guurka oo damiciisa aad u hirgelin haddaad fahantay inuu qofkan guurka ku degdegaa marka inaad iska fiirisid siyaabo badan ayaa jirta marka walaashayna waxaan jeclaan lahaa laba su-aal inaan weydiyo haye soo dhawow inkastoo su-aalaha isku eg hal su-aal aan ugu dhigan marka isoo shaabahayaan labadoodaba marka waxaa ka hadda inta badan arrimaha bulshada marka oo dad laga wacyigelinayo waxyaalo fara badan ayaa la kulantaa marka arrinta ugu layaabka badnaa aragtay ayaan weydiinaya walaashay marka anwar oo mar kale galab wanaagsan yaqaan يعني arrimaha qoyska ka wada mid waa tahay waxyaalaha yani kul yawm lahu ajab yani maalin walba wuxuu leeyahay waxyaalo la yaaba waxaa ila yaabka badnaa oo aan ku arkay maadaama aan mawduucan yani waxyaalo badan way jiraan laakiin mawduucan aan haleeshiinayo gabar jirto 15 sano waxaa soo furay 4 nin ninkii shanaad aan ku soo gaaray isagoo furaayo 15 sano jirta muddo 2 sano gudaheeda ee ninkii shanaad maraysa taasna waxaa keenaysa suu ikhtiyaarka qofkan wuxuu ku dalbanayay ama uu ku dooranayay aysan aqoonteedana uma lahayn garaad iyo maskax ee la isku celiysana uma lahayn mid walbana wuxuu ahaa mid waalidka laga qarshay oo ama waxay iyo qaar waalidka loo soo bandhigayba labadaba uu iskugu jiray walidaalka waxaa leeyahay marka waxaa
markaan raacay waxaan kusoo xasuustay su-aashiisa markaan raacay dib u raacay waxaan arkay inta waxyaalood ay ku dooratay mid saxa oo doorashada qofka ah oo ku habboon inaysan jirin marka aad doorashadaada marka wax aysan ku habbooneyn aad samaysid waxaa badnaanaya burburka qoyskaada inuu bato waayo oo furiin imaado markaas oo kale like maada iska fiirin wiilkan akhlaaqdiisa diintiisa maada iska fiirin biicada uu kasoo jeeda iska maada fiirin sidoo kale guriga uu kasoo baxay lahu tarbiya guri kastaba hooyo kastaba sibay ilmaheeda u tarbiyeysaa walidaalika tarbiyada oo iska khilaafsan wiilkan gabadhan waxaa lagu soo barbaariyey tarbiya jilicsan oo layin ah yani oo hooyo jilicsan baa dhashay tarbiya wanaagsan ay kusoo tarbiyeysa oo akhlaaq iyo diin leh wiilkaana waxaa lagu soo tarbiyey tarbiyo yani wuxuu kusoo yani uu kusoo koray ama college ama meel kale qalafsanaan uu la soo galay gabadhan marka xanuunnimo ay rabtay iyo wiilkan adaygiya isku himaaday burburka qoyska qayb ka mid ah waaye ina marka waxyaalo badan oo qofka uu xeeriyo uu fiiriyo waaye marka waxa ugu la yaabka badnaa waxa waaye qof gabadhaas ay ugu la yaabkadeen laakiin waxyaalo ka badan oo ka waa jiraan waa tahay dabcan hadda ma la dhihi karaa caqabadaha ugu badan ee ka jira dhanka arrimaha qoyska oo markaad fiiriso bulshadeena oo kale waxaa la sheegay inuu fariin ku badan yahay marka taasi sabab muu u tahay in aan qof walba uusan u fiirin qofkii ku habboonaa qayb bay ka noqonaysaa waayo haddaad taqaanid albaabkan waxa gadaashiisa yaala waad ogaan kartaa wixii kaaga soo baxaayo like intaan albaabka soo galna gadan microphone yaalo sameecada yaalo studio waaye taan waaye marka aad soo barto yani marka soo galo waad tasawuran karaa laakiin haddii wixii meesha oolin waxaanan ahayn la keeno ama la raasho like sida quruxda oo kale quruxdu markii sanado imaado uu baaba'aya sida qofka markuu 20 jir iyo 40 jir iyo isku qurux ma aha sidoo kale maalku maanta yani waxa laga yaabaa inaa hal doon ku rarto doontii afalisti yani waxyaalaha kale sida nasabka oo kale nasabka hadhowti gurigaada ma badbaadinayo bal uu qayb kamid ah uu dudumiya yani waxyaalaha marka aan anaga interest aan siinayno oo aan fiirinayno waxa ugu muhiimsan waxa waaye diinta inaan interest ku siino waaye nabi waxa saxaabiga Ali bin Abi Talib anin u yimaado wuxuu dhahay gabadhayda ayaan waxaan doonayaa inaan guuriyo yaan guuriya zawjha man yattaqillahu lah u guuri qof ilaahay ka cabsanayo fa ida ahabbaha akramaha hadduu jeclaado uu wanaajinaya wa ida aqbadaha لم يظلمها حدو كعراض أو ما ظلمنايو ولذلك قفك مركو إلهي اسكو حرانيا هاي وحبضان ويو إلهي كعبسنايا أخلاقيات ليه هاي مبادئ ليه هاي شخصية ليه هاي يعني تفكير ليه هاي أيقو قفك انتاس ليه وحلقيا يابا قفك حوغا يعني متسرعة قفك آدو دك بدن marka waxa imaanaya qofka degdeg aad u badan inuu gurigiina ku degdego gabadhiina Soomaalida hore u maamaado xiraahda geedka or lagu kala orod baa looga soo dagaa marka hadaan ka fiirsan zawaajku waa wax aad u muhiim ah asaasiga nolosheena inta ugu badanna nolosheena aan qaadano marka hadaan ka fiirsan inta badanna waxaan ugu dhaca inuu dalaaq yimaado وتاي وما سنتها أستاذ عائشة هيدو قلبت برنامج كلا قيب قلي سأديقنا وان قلا قيب قلي كرتا وفكرة هذا والنص وبين كرتا هدي إجرت سؤالنا وادويدي كرتا إن قلبتنا وحنو برنامج كجهل لنا تلمامها قبل ويكون حلم كرتون الوذاك كذا برنامج كواحد قيب قلي كرتا نبردن كلا إبر لي حال سجال لحدني يلا بالله باتني أفر إبر سدح أما ميت كان كلا إبر لي سجال كونتيني كوز جتني سدح هسي شيء دانك يدقيسياشا waxaan aadayaa fariimaha in soo gaarsiiyay dhageysahani waxa ay fariinteeda ku bilowday assalaamu calaykum bahda himilo wa calaykum salaam galab wanaagsan dabcan aniga waxaan dhihi lahaa in ragga lagu doorto way tahay in ay diin leeyihiin akhlaaqdoodana ay hagaagsan tahay run ahaantii gabdhaheena ma fiiriyaan waxyaabahaas balse in ay ku baraarugaan ayaan u sheegi lahaa ay fariinteeda dhageysaasi ku soo koobtay way mahadsan tahay dhageysa xiga ee khadka ku jira ayaan siinaya hello dhageys halo soo dhawow magacaaga halkaad ku sugan tahay walaalkay adii jidada ka qabtada ka saacidayo abaayada barnaamijka markaa Aisha inta idaacada hujada hoygaarimaha bulshada xamidin leeyahay galab wanaagsan jimcaha wanaagsan galab wanaagsan sidoo kale jimcaha wanaagsan soo dhawow magacaaga halkaad ku sugan tahay
gobolkan Ibraandir. haye amina soo dhawow maxaad noo raaci lahayd oo dabcan galabta waxaa laga hadlayaa waxyaaba idinka idin quseeya maadaama tihiin gabdho Waa ka tooraanka qaabka quruxda badan ee barnaamijkan nooga soo taagan mahadcelinaya mar kale waxaan dhihi karaa baahida barnaamijkan ra'yigeena soo bandhigtay maanta dumarkeena Soomaaliyeed maanta sidii karo wax badan oo qaban karaa fikradda iyo ra'yiga ka dhigaysan aan ugu mahadcelinaynaa marka waxaan dhihi karaa gabdhaheena Soomaaliyeed dumarka waxay ku dooran karaan qofka bini'aadamka ugu horreyn horta waxaan mudan inuu lahaadaa qof akhlaaq wanaagsan sida walaasheena ee sheegtoo kale sida qofka inuu diinta islaamka wax ka yaqaana inuu noqdaa qof lagu soo barbaariyo aqoonta iyo diinta qof noloshaada kaasi kara maantana buuga la qaadi karaa inuu meel hagaagsan gudbay karo oo hagaagna kugu dhaqan kara qofka inta uu yahay waa uu dhammaystiran yahay diinta islaamka wax ka yaqaana kadib ku talaabo dukanaya qofkaas waxaan dhihi karaa waa ay sabaxsato qof wanaagsan aad ka dhihi karaa marka dhalinyarada Soomaaliyeed inta aad islaamnimada wax ka taqaano nagu baaqaya marka qofka jiraada in lagu doorto shariicada islaamka wax kamid ah inuu wataa marka waxaan leeyahay dhalinyarada hadda soo gudbada soo qofceesan waxaan dhihi karaa mar waliba ala tagdiran ila diinta islaamka qofka akhlaaqdiisa marka waxaan idin leeyahay baad mirida taraanada madcelnaya galabna waa mahadsantahay sida wanaagsan aad barnaamijka nagala qayb gashay oo fikradaada dabcan aad kula wadaagtay dadka kale ay ku dhageysanaya himila FM 102.5 megahertz ayaad naga dhageysanaysaan barnaamijkana waa barnaamijkii hanka dayarta oo galab kasta oo jimcaha aanu ka eegno dhanka iyo arrimaha qoyska sidii sare loogu qaadi lahaa wacyiga dhinaca qoyska ee dhageysahan qadka ku jira ayaanu markaan siinayaa halo dhageys halo salaam alaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سلو وأنا وحي ولالكيا أديك إيو ولالكي عائشة أو برتي برامجكي نوغة برسمي قاتل جدي أنت ملك حلو حاجة لي هاي كلام ونكسي معاه ونكسي كلام ونكسي سيدو كلي سلو وأنا وحي ولالكي بقرة دريرو دكتور نمعنو نمعنو شيء ورجل الآلة وكلا الله يمزو هي نمعنا نصيب سلو محاد نور راعي لهاي نو قدر لهاي طبعا وحيابي لصو شيقي إيو وحيابها كلي عد نو هيسو استاذ شرط حنا جزاكم الله خير إليها كايا والجذور تلك بحنا وشرح ذي كلي تلستا بقاعدة سعادة سوى دمر كود كلي سوى يحكو طوراها هايين هرد واحد بدن وينو اتين سوى واحد بدن وينو لابيين مركي يردار تفكا برسول الصمينة هرد واحد بواسك حالتها بشري سوى تلك ايكتا شكي سوى أصل تاني فرطي وواحد كقران مركا حد يبيتها يا واحد ماشي يكو قري إني شانين كفران midda kale markii adoo qof wanaagsan la socdaa qofkan guursan karta taas waa xukun ilaahay la dhihi karaa markii la yiraahdo doorashada markaad samaynayso kale badanaa aniga dumarkeena waa dhalaalka indhaha qofka marka waxaan ku aragna bas ayaan aaminaa oo waxaan maxaa yeelay aad baan u jilacsanahay midda kale markuu qofkan gaari cad oo kale wato oo aad u qurxiyo labada bil noo sheekay anigu saasaan u dabcinaa qofka waaba jeclaanaynaaba mar haddee dumarka qof jeclaatana waa sidii isku dhiibsay waata waxyaaba dhowraa ka dhawaajisay dabcan maxaa marka waxyaabahaasi ku kalifa islada marka dumarka inay eegaan oo dabcan intaasi niyadooda ay ku dhistaan walaal kadar aad u mahadsantaa dumarka qofka iska faanjecelihiin markii la sheekaysanaya qof walba xaadigeeda inay qofka kale uga sheekayso jeceshahay marka xaadigaago kale markuu yahay qof xamaalata oo muruqa ka maasho kale waa laga faanayo qofka la sheekaysanaysa ma arkid laakiin markii aad tiraahdo adduunyada kale wadaayo xaajigu saasoo baabuurka muxuu qabtaa muxuu ku adadegya diinta muxuu adadeg yahay malas ahaa laakiin muxuu wadaa muxuu sameeyaa shaqadiisa maxay taala isweydiinayaan waata dabcan waxyaaba qarsanaya banaanka soo dhigto dabcan dhegeystayaasha qaar aysan sheegin marka waa tahay marka maxaa la gudboon gabdhaha oo dabcan adigana aad ka mid tahay in ay qofka ay nolol wadaaga yani la qaybsanamayaan oo ay rabaan inay nolosha la wadaagaan way ku xolan karaan isleedahay wayna u wanaagsan tahay waa mahadsan tahay laakiin horta boqolkiiba horta qof dhamaystiran lama helayo oo bilaadan qof walba bilaadan uu dhiman yahay horta laakiin markii aad qofka dooranaysid qofkii konta soo buuxiya waa inaad ku doorataa haddii qofka uu dabeecad leeyahay si lamidana diinta uu ku adaadag yahay adigu noloshaadana uu kafaalo qaadi karo waalidkiisna uu daar u yahay qofkaas uu qaafici kara xaqiiq midda kale hablaha waxaan uga digayaa hiblaayadan aroostay adna iska aroos taas horta muhiimad ma lahan aaminsana iyo hiigsi dheer marka badanaa waxaan aaminsana waxaa ku hajinbo oo fariinka iyo dee galmo yaro garoobo la dhahaayo noo soo baxaan waa waxyaabahaas oo kale marka walaashay caaisha iyo walaalkay qadar waxaa idin leeyahay galabana waa mahadsan tahay sida wacan aad barnaamijka nagala qayb gashay waana kaaga mahadcelinayna dabcan ustaad caaisha waxyaabo oo dabcan qarsoonaana banaanka way soo dhigto dabcan bulshadana ka dhex jira
ما شاء الله تبارك الله والله هاي هرتا waxay ka hadashay wax reality ah oo ajira oo dhab ah way ka hadashay horta inaan nahay yani waxyaalaha shahwaadka raaca oo inta badan oo qurquruxda iyo waxyaalaha raaca inta badan waxa waaye dumarka waaye indhaha wax ka arkaan haddii la xiro xataa way ka arkaan marka horta jaceylka usoo gudagalaya ay ka mid ah tahay waxyaalaha ay ka hadasho walaashay jaceylku maaha midka yani labada qofood inta hore يعني إن إنتيسن شاكي سنايان إن إستجران قبل واحد ليس نكان ويشعلي هني وأقول سنايا إن أبايو إن قبل كستو صومالي لو يمكلس وحنا ليه هاي من كم أخذ شعلي إيه وكاهلة like إن اللقاهلو مهمة واي أو عادي أهواي قبل والبنا ولا جهلا لكن إن لو شعلاضه هركس ورما ذكر أنت تقول سنكار waayo marka guursatid kadib waxa ogaanaysaa jaceylku micnaha uu leeyahay iyo qiimaha uu leeyahay alxubna bacda zawaaj uu imaada waxa hadda lagu waxeenayo oo romantic la jilaayo oo gabdhiye dhahday gabadha yani ku raacayaan ama baawur ama guri ama yani ninkan meel hebel u shaqeeya oo kale muhiimad ma aha muhiimada waxa waaye sa hore u soo sheegnay qofkan shakhsiyadiisa wuxuu yahay haduu low u yahay qiimihiisa هادو لعكس هيسا قيمه شخصية دي سهوس ودعكتا لكن هادو قيمه سريانا وحنا قنا يقف أدو سريا سيدا كلا أبايا وحيالها إيه كده واجي سوا حاكم ده حبلا ويكورستي كورس وواحد كوبدن هذا كرواية قف صاحب تاي وكلا وهم بليان سالوقة لجوس وكلا حلوة دي كور مالو ده هايان يا أختي يا أخي بدك حلقة داي بوش كرينتا qofka markuu guursanayo wuxuu raadinayaa sifaadka uu qofkan ka helayo maaha yani waxa ka heshay gabar diin leh gabar akhlaaq leh gabar kana laakiin waxa jira sifaad basically adigu ah sida qofkan isku fahmi lahaydeen sida qofkan meel u wada qaad lahaydeen malaayiin diin leh akhlaaq leh way jiraan laakiin waxaana la isku fahmi karin habka uu qofkan ka fahansan yahay guurku waa maxay waa inaan isweydiinaa هدف وجورسنا يقف كان وامحي ما فهمتي وحياله بدن وين السويدية أستاذ مركا لازم واي إنا هلا جورس قف كان ما شاء الله على في كيسة الصبح لكن معها إن قبر والبا انترست جاي صارتو قبل أن صاحبة دوال جورس ده أديك نبل حفلة دريقو تايوا ما سنت سعيشة نجس أشياء مركا كلها بني هلو نجس هلو نعم قدر أبي عائشة نجس السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سلو محمد هي عبد الفتاح محمد لو ذاقيسا أديكو برامج كنا إسلاحي وادلا سعود أجل لما خبط كاملا من الوقت اشتريت بالله مشان أوعى يمكن دهنك أدان المرأة بوك أخي شيخو أو خادنا يقول وأنا كم خطرت وحي أن شيء وعبد خبرت مسلم أركي وعرفت مسلمة صفك أركي وعرفت مسلمة هلكي وعرفت مسلمة لبس كيس لبس مسلمة ومع الله يعني صالح الحياة عاكم بدي سفيعا قاطع من الحمدية خفت منك دينا إنه لكم بندا أدي جري إننا أنا بلمي وركل أو كدوم تصح مع تصير waxaan fahmaa aad meel kale oo kula mo sidee meelahaas oo kale maxaa kamid ah وركل أو كدوم إنك من دينا ما يكره gabadha wuxuu ka dhuumanayaa reerkooda ninka min diina ma yikra inuu diin leeyahay dadka noocan dadka kale halkii diganta uu ma imaanayo meel beertanaadii يعني waxaan ku fahmay in meelo qaar ay ku kulmayaan oo gurigeedii aysan ku kulmaynin yani oo usan rabin inay reerka isbara uusan rabin طبعا وحا يعني محونا فكرة يعني قف أن جوري ربنا إنه هو ما ذو جوري كل ما عندنا إسبرو ولكن ملاها قار وسيد ملاها لقون استوى كلا إنه كل شيء كستان أيوليه ها يعني
كل شخص أو احترام عيو لازم إنه كو احترام مكان كأجوكتي عفضة iyo doorsanaanta gabadha muslimadana waxa aad ugu qurxoon oo u wanaagsan oo cifadeeda iyo doorsanaanteedana muujinaayo gurigeeda inoogu imaado waayo nabiga calaysalaatu wasalaam markuu dhahay idaa ataakum man tardawna diinahu wa khuluquhu yuu ka hadlaay waaridku ka hadlaay hadduu nii imaado ama gabadheeda ku nii imaado intuu ugu imaanayo guryahooda waxaa albaabada inuu kasoo galo أما إن قفك إنه خير والله نقضاء وميل جونية ولا شيء أساس من الدين معها لكن وحاك في عن قفك ما دام الدين لي أخلاق لي هاي إنه مرو أنا وإلى شو يعني حيالها عبت الدين تيس وخصوصا يعني أخلاق دي سبب سيدا كلا ولا له شيء الدين تو ما هرت إن أفكار لك الشيء تعمل لبس الشيء تو وحاواي إن لو دق مواي إلهي سبحانه وتعالى هنا قد يقول كود دقمة أو مرو البنا هرسية ما شاء الله ده وتاي إنك يدقيسيشا إن فريم هذا ينقيا دقيسي فرين سوقر سيسي وحي فرين تدكوب بالله السلام عليكم وعليكم السلام يلين هاي وجواهر جوك تكاران وحان قبلها كبر رجنيا إني كدورتان دين الإسلام كلكن أي كراعن قروحديسا وايو قروحدو way dhamaanaysaa ay fariintada in jawaahir dabcan ku soo gabagabaysay waa maasantahay in adiguna dhageyso waad nagala qayb gali kartaa hadda dib nooga soo biirtay waxaad barnaamijka kaga qayb gali kartaa nambaradan waa eberli hal sagaal 60 iyo 22 iyo 4 eber 3 ama midkan kale ah eberli 99 59 59 in marka ustaad Aisha ayaan ku laabanaya ustaad Aisha dabcan dhageysayaasha waxyaabo dhowr ay ka dhawaajiyeen marka haddii gabadha ay ku xulato waxa wanaagsan oo dabcan ilaa iyo muddo intee leeg marka ay gabadhu ku ogaan kartaa marka sifihiisa iyo waxyaabahaas oo kale inay ku tijaabisay tahay ما شاء الله أستاذ قفكو مدة قفكا مبارية مش أنا هذا مركان كوسو تلمامها صولا وتلمامها مركا عليك عرفتين لكن لازم إنك على شيء كيسنيسد أما عرفت إن نلش لو وداكتي وين حكتي سوقعتها ما ها حكتها ومنتكو أثر بسكو شيء حيالها عندها أنا موقع وحا كمدا يعني ويل كان لبسكي سواء عرقنا دين كم وقتوا عرقنا لكن وحكا لأو أنك عن صوص عرقنا حتى دمرنا هاي مكران لكن لازم إنا حكتي سان وقعنوان وإنا أدرنا رد أما وإنا قفي قانا أصحابتي سان كأوغانا هدي أهان لهيد يعني أخلاق نسكا هدي أهان لهيد سوء دقمو هدي أهان لهيد يعني كرم كيسا هدي أهان لهيد دلقات كيسا قبلنا وحالك يا من كان دلقات إنو لهين أو شرعي هاي أو وحي الشيغة إسلامركي يعني عصبيها ومرول بإسكا حناقو ياكو اوغان كرتا marka adigu kula hadlaayo xoga telefoonku iska fogeynaya mujaamalo sameynaya hadana haya caadi u dhahay waxa ku ogaan kartaa dadkii cishada soo wada maray yani nolosha isla soo wada qaateen asxaabtay wada yihiin yani waxyaalaha soo dhan baa ogaanaysa ma ku dhahayo gabadha ma dhahayo yani ninkan wuxuu asaga ku sheegay bis qaado waxaan leeyahay fihi istishaara qof yani waxa weeysa la talin قف ويديسو قف كان وحو يهي سو حقوقال إلا 6 بلاد إلا هالسنة قف كان مكان لشيك استداد جوانب والبكاء عاشق ضد يعني كهشد مركا كذب يعني هوش لميستا لكن مدى هاي ما هو أسوي كل شيء بس تركيز كسار واتاي ومحسنتا أستاذ عائشة dhageystayaasha dabcan barnaamijka way nagala qayb gali karaan oo fikradooda way inoo soo gudbin karaan waxaana galabtaan uga hadlaynaa tilmaamaha gabadhu ay ku xulan karto nolol wadaageeda السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صوت هذا وعليكم السلام وعليكم السلام دبانتين صوت هذا سؤالها halkan waa naga soo weydiin kartaan gabadhii su'aal rabto xamdi soo dhawo izati soo dhawo dhamaantii soo dhawaada walaalahay ahleen
dabcan gabadhii ku dhownahay okay maxay ka qaban maxay gabadhu waa ka soo hadalmano maxay tahay in gabadhu ay ku xirato wiilka waa ka soo hadalmano ها يعني hadda واصح waxaan ugu dambeyn مفيد gabadhii si barina mogta عادي عادي waxyaaba hadda noo dhiman islada ma jiro maalin kale aan ragga ka dhigano soo maha caadi waa hadda haddaa wax ka faa'iideyn la sheergalaya walaalihiin idaacad aan ku jirna waa hagaag dhegeystayaal waxaad la socotaan barnaamijkanka dayarta ayaa dhegeysanaysaan himila FM 102.5 magartis dhanka iyo dhegeystayaasha ayaanu markaan ku naqanay halo dhegeysta waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhowow adiga oo ka fogaanaya raadiya si dhegeystayaasha codka ay u maqlaan waa tahay dabcan dhegeystayaasha qadka ayaa ka go-ay way mahadsan tahay dabcan waxaan rajeynayaa inay kusoo noqon doonto oo ay su-aalaha haddii ay qabto ama fikrado ay la wadaagi karto bulshada kale haddaan eego dhanka iyo dhegeystayaasha fariimaha ina soo gaarsiiyey dhegeystahan waxa ay fariintiisa ay ku bilaabay assalaamu calaykum bahda himilo magaciigu waa nasro xuseen waxaan joogaa degmada dharkeley aniga waxay ila tahay in gabdhuhu ay ku xushaan qofka ay rabaan inay nolosha la wadaagaan tilmaamo wanaagsan oo hadhow u horseedi kara in aysan isfahmwaa uusan ku dhicin ayay dabcan fariinteeda dhegeystaasi kusoo gabagabaysay dhegeysta xiga ee qadka ku jira ayaan siinaya halo dhegeysta halo وعليكم السلام ورحمة وكم مقلا سودو ها وكم مقلا دقيس سودو مقع عيالك كسوغنتا تاي waxaad muddo dhegeysaasi in la maqli kari waayo uma sayahay waxaanu isla soo garnay qaybihii dambe ee barnaamijka hanka dayarta ustaad Aisha ayaan ku laabanayahay ustaad Aisha dabcan waxyaabo dhowr ah oo dhegeysayaasha iyagaba ay qareen iyo waxyaabo kale oo adigaba ugu faa'iideysay marka goontii iyo gunaadkii barnaamijka ayaanu ku dhownahay waxaad marka inoo soo gudbisaa talooyinkaaga ku aadan in waxyaabaha ay tahay in gabadhu ay ku xulato ruuxa ay rabto inay nolosha la wadaagto waa aad umahadsan tahay waxyaalaha intaa soo sheegna waxaan ku darayaa hadduu alla idmo dhowr waxyaalood inay koodii ku xulato in uu waxaa jira waxyaalo waxaa jira uu qofku ku xusho qofka uusan garanayn inta badan waxyaalaha waxaa kamid ah asaga iyo ehelkiisa wiilka xiriirka ka dhexeeya hadduu xiriir wanaagsan uu yahay oo yacni birinta hadduu xiriir xun yahay aduu ku saameynaya laakiin asaga iyo reerkiisa haddii xiriir wanaagsan ka dhexeeyaan oo ah baari ahaansho ah wanaag iyo qayim adigana ilmahaada biri waxay noqonayaan kuwo wanaag badan oo aad u qiimo ah oo mar walba ah kuwo mutafawiqiina midda labaad oo aan ku xulnayo waxaa waaye ay ku xulanayso inay horta iska eegto yani asxaabta waa muraayad saaxiibkaas siduu yahay baadna tahay laazim marka wiilka aad nolosha la wadaagaysid in aad ogaatid saaxiibadiisa waxa ay yihiin habka uu la dhaqmo bulshada waliba habka uu kula dhaqmo dadka docfada ah oo yani aanan wax haysan oo tabarta daran lianna qofkaas hadduu raxiim u ah man laa yamxan naas laa yamxan allah yani qofkaanan dadka u naxariisan ilaahay uma naxariisan يعني مر والبا وحلو باهيا دتك واوين دتك يعني صفات وحاوي صفوين كلا كبحصن واي صفوين كهاد سو شكل اساسا
waxyaalaha kale waxaa kamid ah oo uu gabadha ay ku xilan kartaa ninka waxaa kamid ah quruxda uu sheegnay